labadii qof markay sidan u kala fogaadaan ee ay ku kala mashquulaan waxaas mashquulkaasi weliba wuxuu keenay in furiinkii ugu badnaa uu yimaado oo wasaa'ishan ama mareegahan iyo barahan bulshadu waxay keentay furitaankii ugu badnaa ee adduunyada ka dhaca marka caalamul islaami laga hadlaayo taqaariir iyo baadhid laga sameeyo iyo daraasaad laga sameeyo maalan waddanka sacuudiga sanadkan 2022 ma yawmiyan waddanka sacuudiga haweenka la furaa waa 168 yawmiyan maalinta kaliya macnaheedu waxa weeyaan saacad kasta waxa la furaa gabar sacuudiyada yani saacad kasta waxa la furaa 7 dumara macnaha 7 dumara marka 168 yawmiyan la furayo marka saacadii lagu celiyo waxa dhacda saacad kastaba 7 furiin baa dhaca 7 furiin waa saacad kasta 10 daqiiqo ama 10 ba wax ka yar 10 daqiiqaba furiin baa dhacaya macnaha hal furiin baa dhacaya 10 daqiiqaba waa wax aad iyo aad u badan saxiifada ama jariidada la yiraahdo al-yawm oo sacuudiga ka soo baxda waxay sheegtay 17,595 dalaaqin inay dhaceen bilihiina soo dhaafay waa isla sanadkan 2022 7,595 يعني ayaa gabdhood baa la furay oo macnaha reer baa baabay macnaha waxa weeyaan waa wax ku dhow 850,000 oo qoys baa burburay macnaha waa sanadkan 2022 marka sanadkii 2019 tirakoobkii la sameeyay dalaaqa marka loo celiyo boqolkiiba 12 ayaa kordhay boqolkiiba 12 baa 2019 ilaa iyo 2022 boqolkiiba 12 wax sahlan maaha ayaa muddada yar ee 4 sano ah ee 3 sano ah ayaa kor u kacay oo furiina waxaasoo dhan daraasadan waxa la yidhi waxa sabab u ah ee baraha bulshada iyo Facebook iyo WhatsApp-ka ayaa sababta koobaad baa la yidhi oo arrintan keenay imaaraadku waxay yiraahdeen boqolkiiba 50 furiinka ka dhaca imaaraadka waxa sabab u ah barahan bulshada WhatsApp-ka iyo Facebook-ka ayaa sabab u ah Kuwait waa saas oo kale moobiladan yani ay yiraahdaan al-hawaatif ad-dakiya iyo barahan bulshada ee dadku ay ku kulmaan waxay sababeen bay yiraahdeen furiinka wadanka ka dhaca boqolkiiba 3 boqolkiiba 3 bay sabab u noqdeen marka mushkiladeeni iyo baabaeeni iyo burburkeeni ayaan gacanta ku wadanaa gacantaan ku sidanaa